kulankan oo isugu yimaadeen qaar ka mid ah taageerayaasha maamul goboleedka Hiiraan State oo dhawaan loogu dhawaaqay dalka Kenya ee magaalada Nairobi ayaa looga arinsanayay sidii taageero buuxda loo siin lahaa maamulkaasi. qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay shirkaasi ayaa goobtaasi ka hadleen. caawa meeshan waxa la isugu yimid qayb waxaan la kulannay Hiiraan oo reer London ah waliba qayb ka mid ah qaybtaasoo waxyaalihii lagu soo qaatay ahaa fundraising in lacag loo aruuriyo Hiiraan State lacagtaasoo loogu talagalay in lagu bixiyo waxbarashada caafimaadka difaaca iyo ciidamada meesha joogo in lagu taakuleeyo. Hiiraan State looma dhisay inay gobolka kale ku duusho looma dhisay in dad lagu baabiyo waxa loo dhisay shacabka degan si uu dhan yahay inay wax u qabato inay horumariso in wadamada gobolada dariska laha ay wanaag kala shaqeyso in qaranka Soomaaliyeed la dhiso ay Hiiraan State ayaa loo dhisay loona asaasay. Hiiraan State aqoonsi ma helayso hadayna anaga aqoonsan markii ugu horreysay we have to recognize Hiiraan State inay tahay wax jira. Hiiraan yani magaca uu leeyahay iyo taariikhda uu leeyahay iyo ma aragtay meesha uu munaasibka kaga jiro ummadda Soomaaliyeed wax la inkiri kara ma waa taariikhiyan marka waxa weeye waxay anagu marka tahay inaan soo noolayno taariikhda oo halkii aan ummadda kaga jirnay aan halkeena ka qabsano. waxaan rabaa halkaan inaan ka sheego inaan si aad iyo aad u weyn aan u taageersanahay maamulkan Hiiraan State taageerada waliba afka kaliya ma ahayna in maaragtay dhinac kasto aan la daba taaganahay hadii ay noqon lahayd dhaqaale iyo hadii ay noqon lahayd aqli iyo maaragtay talaba. afayeenka maamulkaasi oo London ku sugan ambassador Xoosho ayaa weydiiyay maamulka Nairobi loogu dhawaaqay muddadan uu jiro waxa ay qabteen iyo halka ay ka taliyaan. tan iyo markii lagu dhawaaqay maamulka Hiiraan State waxyaabaha uu qabtay waxa ugu muhiimsanaa laba qodob. qodobka koowaad in Hiiraan State laga gado international community-ga taasoo laga soo hooyo guule aad iyo aad u ballaaran. qodobka labaad waxay ahayd in aqoonsi Hiiraan State ay ka hesho dadka ay matasho taasna waxaan filayaa inay ku guuleysatay. waxaan ilaahay mahadi ah in madaxweynaha Hiiraan State mudane Maxamuud Cabdigaab oo maanta ku sugan yahay wadanka gudihiisa isagoo diyaar u ah inuu wax ka qabto ama uu hirgeliyo sidii ku meel dhal lahayd Hiiraan State ayna isaga xoreyn lahayd cadawga haysta gobolka. madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay booqasho ku tageen galmudug kadibna madaxweyne ku-xigeenka Isaaq Cabdulle iyo saraakiil oo hogaaminayo waxay gudaha u galeen Hiiraan si ay markaasi ula kulmaan ciidamada halkaasi la isugu aruuriyay ayna diyaar u noqdaan sidii u xoreyn lahaayeen wadankii. waxayna haatan ku sugan yihiin waqtigan xaadirka ah Hiiraan gudihiisa iyagoo wax ka qabanaya waxna la qaybsanaya dadka reer Hiiraan ee halkaas ku nool. waxaan marka hore u mahad celinayaa Universal TV oo runtii adeeg fiican u fidiyay bulshada Soomaaliyeed shirkana maanta martino u ahaa. shirkeeni maanta si qurux badan oo noogu bilowday si qurux badan waa noogu dhamaaday ujeedooyinkii aan ka lahayn dhamaan waa ka gaarnay. dumarkii ka soo qayb galay shirkaasi oo aan qaarkood dibadda kula kulmay ayaa iiga waramay taageerada ay u hayaan. maanta waxaan ku faraxsanahay shirkan weyn ee Hiiraan State aan ka qayb galnay aan ku taageersanahay Hiiraan State aan diyaarna u nahay wax kasta oo ku baxo hil iyo dhaqaale wax walba diyaar baan u nahay Hiiraan oo bartamaha Soomaaliya. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay shirkan lagu qabtay West London oo lagu taageerayo Hiiraan State waxaanan diyaar u ahay inaan iyo howlaba kula taageero Hiiraan State sida ay horumar ku gaari lahayd. kulankan oo ahaa kulankii ugu horeeyay ee taageerayaasha Hiiraan State ay ku qaataan magaalada London isla markaana ay ku muujinayaan dareenka taageero ay u hayaan maamulkaasi cusub ee la doortay sanadkan gudihiisa waa August dabiiqadeeda. 18 June ayuu shirkaasi ka bilowday Nairobi waxaana 10 Agoste lagu doortay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ayadoo lagu caleemo saaray 20 Agoste madaxweyne Maxamuud Cabdigaab iyo madaxweyne ku-xigeen Isaaq. waxaana markii lagu dhawaaqay maamulkaasi ilaa hadda ay ka soo wareegatay muddo ka badan 3 bilood mana u suurtagelin madaxweynihii la doortay inuu tago caasimadda gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne. laakiin waxa afhayeenka maamulka cusub
ee hiiraan state ambasador xoosha uu ii sheegay in madaxweynaha uu gaaray qaybo ka mid ah gobolka hiiraan ibraahim cumar baafe wararka universal london